بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وسلامتين meel walba adduunka aad ka joogtiin waa armaheena oo maanta idin soo bandhigo casharo roogawan oo u magac daray nadiifinta HDD iyo dhaqsaha Windows-ka haddii computerkaaga uu yahay mid marka uu soo shidmayo uu yahay mid culus ama waqti dheer qaadanayo inuu soo shidmo iyo marka aad diminaysid inuu waqti dheer qaadanayo marka aad diminaysid oo uu daahayo computerkaaga markaas waxa ku jirto virusyo kharsan oo aad adigu arkeen marka waxaan ku tusinayaa maanta nadiifinta HDD sida HDD-ga oo nadiifin lahayd iyo dhaqsaha Windows-ka iyo sida computerkaaga uu dhaqso u soo kaco marka aad diminaysid iyo marka aad shidaysid intaba mid ka mid ah daawadayaasha casharadena aan ku soo bandhigno YouTube-ka ee barnaamijkeena bar ama baro ayaa isoo weydiiyay dhaqsaha computerka iyo sida loo nadiifiyo HDD marka ila soco casharkan hadda ayuu bilaabanayaa marka waxa muhiim ah inaad isticmaashid ama aad soo degsatid barnaamijkan la yiraahdo CCleaner waa midkaas shaashada kaaga muuqda CCleaner wuxuu ku fududeynayaa Windows-ka virusyada qarsoon ee ku jira ayuu ka sifeynayaa marka waxa kale oo isticmaalaynaa disk clean up iyo waxaan hore u gudagalaynaa dhaqsaha Windows-ka si uu computerkaaga dhaqso u soo kaco iyo inuu dhaqso u dimo okay marka hada CCleaner waxa kale webkan aan ku soo qorayo description-ka waa midkan ku muuqda hadhowdii hore wuxuu ka baahan inaad halkan riixdo download now haddii aad haysatidna waa haysataa marka aniga hadda waan haystaa ma soo degsanayay marka adiga hadhow halkaas aad soo degsan kartaa okay marka aad soo dejisid kadib oo ku install garaysid computerkaaga oo aad ku shubtid CCleaner waxaa sameynaysaa sidan ku muuqata shaashada ayuu soo koraya isagoo shortcut ah marka aniga hadda waxaan sameynaynaa sidan CCleaner-ka ayaa furaysaa waxaad sugaysaa kadib markuu soo furmo sidan ku muuqata arkaysa CCleaner hadda version-kan aan isticmaalo waa mid old version waaye marka version badan ayaa jirto kuwa lacag iyo kuwa iska caadi ah marka midkan waa free marka waxaad ku arkaysaa sidan ku muuqata halkaas oo cleaner ku saaranta iyo halkan oo check mark waxaas dhan ayuu dasaarihi wax kaba bedelaysid waxna kama taabanaysid sida ku dhaaf waxa imaanaysa dhankan hoose hal mar ayaa riixaysa run cleaner juga siinaysa isla markiisana ku sabaxayso oo ku dhahayo ma qanacsan tahay oo ma hubtaa inaad iska tiraysid faylasha qarsoon ee viruska ha ayaa dhehaysa okay ariixaysa oo qanacsan tahay isla markii halkan shaqo ayuu sameynayaa oo qayb ayuu galayaa hadda wuxuu sameynayaa processing wuxuu scan gareynayaa virusyada ay tamiyada qarsoon ee Windows-ka ku jira markuu intaan dhameeyo kadib halkaas kore ku muuqata wuxuu geenayaa 100% ilaa 100 uu ka geeyo adiga waa sugaysaa mar waxay qaadanaysaa waqti dheer marna waxay qaadanaysaa waqti gaaban marka aan sugno sida ku muuqata hadda uu shaqanayaa uu dhaqsanayaa xoogaa markuu dhameeyo kadib waxaan u gudagalaynaa waxaan u xigi doonto disk clean up waa HDD-ga aan iska sifeynayno hadda halkan fiiri wuxuu digniin siiyay you must close Firefox Mozilla to allow the internet cache to clean it haddii aad u baahan tahay in barnaamijkan uu wax ka sii nadiifiyo iska xir Mozilla Firefox oo ilahay okay oo qasbanahay inaad Mozilla Firefox iska xirtid haduu ku furan yahay aniga hadda browser-kan isticmaalo waa Mozilla Firefox marka hadda waxaan sameynayaa Mozilla Firefox iska xiraya haddii aad rabtid inaad sameyn kartaa halkan akhriso waxa ku qoran otherwise this process will be skipped haddii kale barnaamijkan uu ka tagi doona camal ma noqonayo mid oo hirgale marka hadda waxaan iska xirayaa Mozilla Firefox-ka oo aan web browser-ka ah kaluusan iska dhahayaa waan xirayaa kadib si hawsheeda aan u sii dhameystirto marka midkan close tabs aan iska riixayaa midkan marka okay ayaan dhahayaa si hawsha uu sii wado sida ku muuqato hawshiisa uu iska sii wataa okay marka the cleaning complete uu dhameeyay waxyaaba oo virusyada qarsoon ee ka soo raacay browser-yada sida Internet Explorer Google Chrome iyo Mozilla Firefox iyo wixii kale oo ku jira system-kaaga halkan waa Windows Explorer midkan waa system hadda soo degtid waxyaabo badan ay arkaysaa oo advanced ah marka hadda hawsha way ku dhamaatay oo waa ku guuleysatay intaas kadib waxaa sameynaysaa analyze waa check garaynaysaa mar kale okay sida ku muuqata waxaa arkaysaa halkan faylasha uu remove gareeyay cabirka ay leeg tahay wuxuu tirtiray hadda 29 megabyte waxaana igi soo galeen ay tamidaas qarsoona Mozilla Firefox browser-ka Mozilla Firefox marka antivirus inaad ku shubatid computerkaaga waa muhiim waxa jirto haddii computerkaaga antivirus lahayn faylashan kugu soo dhuumanaya adiga arkeen dib weyn ay computerku keenayaan marka okay hadda waan iska close gareynayaa iska xirayaa wadana xogta waxay tahay hadda marka aan nadiifinayo HDD hard drive-yada waxa sameynayaa my computer aan soo furayaa marka computer soo furo my computer aan furayaa kadibna
sidana ay soo bixiso marka hadda computerka hard drive-yada waa partition midkan local disk C waa midka Windows-ka midkan waa midka caadiga oo datada ay ugu jirto marka hadda midkan haddaan right click aan dhaho oo properties aan riixo aan fiirsho cabirkiisa iyo inta uu ka banaan yahay sida ku muuqata waxaad aragtaa inuu full yahay oo ay ka banaan tahay wax yar oo aan saas u badnayn oo 2 GB marka hadda midkan waxaan ku sameynayaa disk clean up aan ku sameynayaa midkan kalena waa Windows-ka hadda asna right click properties aan fiiriyo waxa ujeedaa isna inuu xoogaa kala bar sii marayo okay markaad waxaan ku sameynaynaa disk clean up low meel ayaa ka sameyn kartaa daartid halkan right click inta dhahdo properties dhihi kartaa kadibna aad ka sii dooran kartaa halkan disk clean up meeshaas waa ka dhihi kartaa haddii aad u baahan tahay meel kale aad soo geli kartaa wada kale waxay imaanaysaa start menu aad riixaysaa all programs aad taabanaysaa kadib waxaad aadaysaa accessories aad riixaysaa system tools ayaa imaanaysaa kadib halkaas ayaa ku arkaysaa disk clean up marka labada dhinac waa isku same marka hadda halkan ayaa imaanaya midkan ayaan ka bilaabayaa local disk C right click ayaan dhahayaa properties kadib waxaan riixayaa disk clean up ayaan riixayaa disk clean up wuxuu asna ka saacidayaa hard drive-yada iyo Windows-ka virusyada ku jira ee qarsoon ayuu sifeynayaa si automatic ah marka waa sugaysaa midkan wuxuu ka saacidayaa asna dhaqsaha computerka waxaa laga yaabaa inay waqti dheer qaadato iyo inay waqti dhow qaadato taasna waxay ku xiran tahay dhaqsaha computerkaaga isla markii sidaan ayaa kusoo baxayso markii sidaan kusoo baxdo midkan kore temporary-ga waa dooranaysaa jug ayaa siinaysaa iyo waxaa fiirinaysaa hoos aad u degaysaa midka ugu tirada badan waa midkan compress old files waa faylasha oo computerka ku duqoobay waqti dheer ku jiray oo adigu aad arkayn midkaas hortiisa aad jug siinaysaa marka doorad kadibna sida ku muuqata calaamadaas saxda ayaa saaraysaa marka intaas sameys kadib waxaad taabanaysaa okay ayaa hal mar riixaysaa hadda wuxuu sameynayaa nadiifinta ayuu galayaa kadib intuu wuxuu ku dhahay you should want to perform this actions ma qanacsan tahay inaad sameysid hawshan oo aad ku dhaqaaqdid wadadan camal ama actionkan inaad sameysid ma qanacsan tahay uu ku dhahay yes ariixaysaa hadda cleaning up drive C ayuu nadiifinayaa all the files faylasha hore ee qadiimiga ahaa ee uu ku raagay computerka waa sugaysaa ilaa inta uu ka dhameynayo cleaning up drive C markuu intaan dhameeyo oo cleanerka kadib waxaan ugu gudagalaynaa dhaqsaha Windows oo idana aad muhiim u ah markuu dhamaado si automatic ayuu ugu degayaa waa dhameysatay markuu intaas dhameeyo kadib baad waxa sameynaysaa okay ayaa riixaysaa inta okay riixin kadib halkan fiiriyada free space waa 33.1 GB haddaan ka baxo aan dib ugu soo noqdo hadduu isbedel hadii kana ogaanina right click properties wuxuu ahaa 33.1 GB haddana sidii weli 33.1 GB marka restart aad sameynaysaa restart oo diraysa computerka marka restart ka soo noqdo kadib waxaad arki doontaa in hard drive C uu isbedelo cabirkiisa okay marka iska xirno marka hadda wadada ugu dambayso aan sameynayno waxay tahay dhaqsaha Windows-ka marka dhaqsaha Windows-ka waxa sameynaysaa waxay ku shaqeynaysaa hadda nidaamkan aan sameynayo fiiriyo waxaan imaanayaa start menu run aan riixayaa godkan ayaa soo baxay godkan waxaan ku qorayaa percentage temp hadan percentage intaas ayaan qorayaa kadib okay ayaan riixayaa isla markii waxa uu soo bandhigi doonaa aad arki doontaa faylal badan oo computerkaaga culeyskiisa qayb weyn ka qaata faylashaas waxaa kamid ah kuwan hadda ku muuqda waxaan dhan waa waxay computerka culeyskiisa u keenaan dhaqsaha computerka kuwan ay ku xirantay waxaan dhan waa crashed waa faylal oo dib u keenay computerkaaga marka waxaad sameynaysaa dhammaan control A aad taabanaysaa ama edit ay imaanaysaa halkaas select all ayaa dhehaysaa select all iyo control A waa isku same dhammaan select gray okay select all ayaa dhehaysaa marka select all dhahdo kadib waa iska delete gareynaysaa shift ayaa taabanaysaa shift delete
وترتريسا دمانتود وحواي 74 ايتمز ay ka koobayeen hadba mar way ka badan yihiin marna way ka yar yihiin laakiin dib waa kuwan programkan computer Windows-ka ku jira ay culays u keenaan marka yes ayaa riixaysa isla markii kuwan waa laga tirtiri doonaa dhammaan markii la tirtiro tira ayaa riixaysa sida ku muuqata yes to all ayaa taabanay waan tirtiray marka waa iska diminaysaa iska xiraysaa intaas kadib markaa samaysid computerka waxaa ku sameynaysaa restart dib ayaa u soo shidaysaa restart ayaa halkaas ka taabanaysaa kadib turn off the computer ayaa riixaysaa kadibna halkaas ayaa restart ka dhigi kartaa marka hadda aniga waa kansalayaan recording ayaan joojinaa duubista kadib restart ayaan u diraa computerka waxaad ku arki doontaa inuu dhaqso sameeyo uu dhaqsanayaa markaad soo shidaysid markaad diminaysid hadda kadib haddii uu culayska aad dareentidna mar walba oo computerkaaga culayskiisa aad ku arkayso Windows-kan uu culus yahay waxaad samaynaysaa mar walba control isbuuciiba hal jeer control run imaw kadib halkaas xisaabtaas kugu qoran percentage 10% kadib okay ayaa taabanaysaa faylasha iska tirtiraysaa sidaas ayaa loo sameeyaa dhaqsaha computerka iyo nadiifinta HDD casharkan intaas aan kusoo gabagabeynaynaa waa arrimaheena wada leesada iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin subscribe comment and rate wixii su'aalaha comment dhaaf